السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحانه وتعالى وناسين هاي ونسان وعن قلنا إن شاء الله market forecast forecast market forecast for the week ahead and January 22 25 إن شاء الله تعالى عن قلنا January 22 25 let's analyze the market and identify key levels. عن قلنا إن شاء الله تعالى DXY عن كلام إنه أسبوع هرو حويان عرفتني أنا العسكري وحويان علمي في الفايدة. All right, so now waxaan ka bilaabayaa analysis-kayga you have to do top down analysis. You must analyze the market over time, every day, and every day. macnaha ku dhehaynin yearly, monthly, weekly, daily for direction. waxa weeyaan cilmiya forex market waxa weeyaan aniga 1700 euro macna aan ka bixiyey keliya waxaan ka faa'iiday monthly, weekly, daily for direction bes aan ka faa'iiday 1700 euro baya waa $2,000 waxaan ka faa'iiday keliya waxay tahay monthly hadda waxaan ku darsaday marka waxaan ku darsaday aniga yearly, monthly, weekly, daily for direction for direction use for direction this use for direction haddaad rabto forex markaa ka guulaysato very simple how I beat the market makers very simple guys. I use monthly, weekly, all of this for direction to find out key supply and demand levels, key support and resistance levels, support and levels, supply and demand levels. أنا waxaan ku tiri doonaa levels. Qofaan levels, price action levels aan ixtiraamina, haween forex ma ixtiraamina. Stage hebel aan baxaw leeyahay ku taala. Laakiin I'm telling you straight. Ma guud ma jiro. Ma jiro. ما اشترى ولا كذا ما اشترى مين تلفي مو قد نسق وجر. All right. So we go ahead. Let's go to market outlook. Analyze the market. We analyze the market. حتى محين لهاي use yearly, monthly, weekly, daily for direction guide. Try to find out supply and demand, support on those levels on those levels. Then waxay tahay trade from the level has volume. Suuqan waxay tahay rafaadkiisa ismaad mayaan bartay naag usajaan bartay baaqbaaqaan bartay sayis hebelaan bartay budhaan aqaanaa xabad ku tiri mayso waxa ku tira waxay tahay is to trade to be profitable guys. You need to trade from price action level. There is no other way you can make profit in forex market. If you don't trade from price action level, you will never make money in forex market. You make money, you lose money. You make money, you lose money. You make money. Qamar waxaan ku yartaa xerta lagu maadaysto oo waxa weeyaan Soomaaliland runta waxa weeyaan maadaysa ka badda mugtahay aad ku jirtaa marka. So I keep telling you guys, you listen to me, you become profitable trader. You don't listen to me, it's up to you. Hadii ku qosay weeyaan aniga waxa qosay ma. So I also say waxaan indhahay trend line ku sii warta on a key confluence levels. Don't draw trend line at the areas. Taga trend line ku soo horjeeda waxaan leeyahay cilmiga barta. Trend line wax kala soconayo ma jiraan. الآن فرق اسمها في الاستعمال فدت هذا بيانات شكل بنلو كرنس. Okay, so I'm trying to find out key confluence levels. The month yearly tell me the market is still bullish. Market is trading with the key confluence levels higher highs, higher lows, then you can expect a new higher high. Damage. All right, he's also American. Come back to the weekly time, monthly time frame. I need to find out monthly supply and demand levels. ماشي marka supply and demand levels helo in meesha laga jiro waan garan karaa mooha laakiin doon supply and demand level aadna helin meesha ka laga jira suuq baa jira helo ka jiro helo u socdo ma garan karo helo u socdo helo ka jiro ma garan karo. So monthly time frame market was trading below supply. You see that how market retest and find out market retest broken structure then break retest beautiful. That tell you the price action. Very simple. Don't complicate things, guys.
waxaa isku adkeyn ha isku adkeyn forex ma adkeyn forex ma adkeyn adiga ha isku adkeyn gacalkeyga waxa weeyaan gacalkeyga waxa weeyaan waa taantaan u maalaynaya sheekhu waxa weeyaan waa security meesha waxa weeyaan ma garanaysa kadib waxaan sawiranayaa draw up day weekly supply and demand levels support and resistance levels when I draw up I have to trade from this week. So DXY is support. DXY is sitting at support. So what do you look for? But only buy. So hadii aad taqinay sajaa taqinay iyo waxa weeyaan ma garanaysa. DXY is sitting support. So when the price sitting support, what you look for? Buy entry, manipulation, mitigation, book, three touch, descending and descending channel, racing, failing channel, whatever you know. لكن هذه support أقولن حاكو صح ما ورطورا حاكو صح ما تشرح. If you don't respect support and resistance levels, حاكو صح ما تشرح ما كرنا سماية. لكن أنت أصلا support and resistance levels. If you don't listen to me, you keep struggling trading. I'm telling you, you keep struggling trading. That's the resistance level of the week ahead. At the resistance level of the week ahead, you expect gold, strong, very reversal. And I expect so far, so good. Very nice week in the inshallah. Very, very nice week. Last week was very lazy week. Previous lazy week, but this week is going to be very explosive week. It'll be very nice. You have to make a lot of money. Inshallah. You have to make a lot of money because we can expect explosive movements from upside to resistance zone. How much pips? 2,200, 2006. On dollar, I'm expecting 2006. 2006 is going to be a lot of money, depending on your lot size. Micro lot, mini lot, standard lot, depends. That's my current. I'm having limit kara and last 2 weeks was very lazy week. All right. If you don't know this supply and demand levels, then how you going to trade? I see so far very nice move. This area can be support. Area trend line area. Trend line is trend line here. Trend line level. Trend line is a key confidence level. All right. Trend line support. Trend line correction good ready. Trend line sign also good. Trend line sign la yela. No. Hell no. In price action, Asher Bank, it tell you straight. Drop trend line at key levels. This area is must to hold the level of the week ahead. Price will never close below this area holding. Trust me. Price will never close below. Price must close above. Yeah, it's called must to hold the level support. Because what key confidence level must to hold the level support. Right? What is strategy can tell you? Must to hold the level support in price action language. Must to hold the level support. So each market strategy ku sheegayso that kind of rules. There's no way. Only highs and lows. There's no other strategy in the market out there and can tell you what I'm telling you. But must hold the support. So now price also open inside the range. What we can expect market to finish the pattern. See the market screen low lows, low highs, low lows, low highs, low lows. See the market to finish the pattern. What is that? Failing trend line, failing wedge. Failing wedge, right? Can you see that guy? Can you see guys? Beautiful. Can you see failing wedge? Ako kada'a, so ku ada'a, yo yahay. Beautiful. Ninth rule, if we ninth rule. What ninth rule here? You have to know supply and demand. If you don't respect supply and demand, guys and girls, you will never get respect in forex market. You don't respect support and resistance levels, market will never respect you. Market will never respect you to the week ahead, guys. So the rallies below, what you can see, 100 is going to be what I call is increment. Psychological levels. Can you see here? Very strong psychological level here.
handle maybe psychological level ahead. So which eating no no shit. It's gonna be a shit, you know. So actually the market will open inside the range of previous weekly range high and low. Then open inside is gonna be and how we are market will trade with support and resistance. Trade support and resistance. All right. So inside the range, let's actually hit the trend line, come back, strong failing wedge, and what we can see, very strong move to the upside, very strong inverse move. Inshallah. Very strong move to the upside, and Monday, Tuesday, swing lows. Let me say, remember, I so also may swing lows. Swing lows, swing high. Look at that swing high. All right. But you can see exactly what's going to happen again. Price action, everything is clear. All right. Euro dollar. All right. What do we do? Haddii aanan sameynin top analysis, ma oga kara meesha joogto maya ma oga karo. So what do I need to go yearly, monthly, hadda ku dhacay, use hadda iga dhaxalta dhig. Use level is monthly, weekly, yearly, monthly, daily, weekly, all of them use for analysis, for direction perspective. For direction perspective, you have to use all these time frames. Hedge one, 30 minutes, all Buddha doesn't work, guys. Use monthly, yearly levels, supply and demand, support and Sohel, waxaan ku ihahdaa monthly Sohel weekly, Sohel waxaan ku ihahdaa daily, sawiro trendline-kaaga, hel confluence-ga, and trade from those confluence levels, guys. Opening price, closing prices, is many more tricks and tips aa jira. Ilaa waxa weeyaan waxaas weeyaan public ma dhigo waxa weeyaan waxay iskale private students, but only for private students. Must help level support. There's a support and resistance for monthly time and yearly time frame. All right, come back to monthly time frame. When you go to monthly levels, you need to find out supply and demand levels. So high gives highest demand, lowest demand, correct start. No, that is a goddamn shit, man. Yeah, that's a shit, man. It's gonna have shit. Use direction for yearly, monthly, until from those exact supports and levels. Smart money, market strategy, Buddha, other things, they only go after this. Marka intaan soo hesho ayay kuu shaqeyni. Intaan soo helin ma kuu shaqeyn doonaa. Mark my words. Markii meel ku qor. Marka intaa xusmayso, inta kale ku xusmay doona. Marka tira laanka saarato, oo marka say ku xusmay doona. Marka tira laanka saarato, key conference level I'm talking about. Ashraf Bank leverage maanta xusmayso ayuu soo ku xusmay doona. Inta ka sukaa, I don't even think you will make money. You lose money, you make money. You lose money, you lose. Waxaa ku jirtaa markaa dadka lagu maadeysto. Marka dee is up to you hadaa ku jirayso aday kuu taala ma garanaysa. Lagu maadeysto hadaa ku jirayso dee wax adig ku quseeyo weeyaan. Ani shaqadii maaha. Qol adig kuu taala ma garanaysa. Adigaa dooro karta inaad ka baxdo dadka fashilan istaraatiijiyadooda una gudubto professional level scale ma garanaysa. So marka aan sawirtay weekly anuu meel kale ma aadin high ma aadin low ma aadin aan level sawirtay kadib maxaa arkaa markaan friend very simple level another level. Nothing wrong with smart money, nothing wrong with market strategy, laakiin levels la'aan hadday shaqeeyaan ya baasaa iga shirta haddii levels la'aan ay shaqeeyaan amba ay ku saacidaan amba ay kaa bixiyaan dadka lagu maadeysto waxay beenta ma weli wadaa ka weynaato my friend waxaan sheegaa been waan garanaysa. I know. Yeah, تبرع. All right, euro dollar.
markii aad direction heshay aad sales soo joogto heshay kadib aad manipulationki iyo buttonka raadsi kartaa laakiin dad inaad sales soo joogto operation kala ogaan karin aan kala fahmi karin sidee manipulation u raadinay ma sheegi kartaa ama motivation u raadinay ma sheegi kartaa there's no way ma kuu saxmay ma sheegi kartaa there's no way sheekh ciyaarka baaka striker button ule button war sida button kuu saxmay button sales soo joogto aadna soo ogaatay inaad joogto manipulation there's no way button kuu saxmay tamis all right waxaa madaxweynaha la dhegeysto inay sheego waxa weeyaan sanadkan waxaa irin qof allaala qofkii dooratay mooyaane qof kale ee farqa ku dhigato waxay different waxay tahay clear soo dhigin online soo dhigin 50% 60% cilmiga aqoon online soo dhigin waxay tahay qofkii inuu daba galo waxa ma shaqeeyaan si u taala soo u shaqeeyaa suuqa intuu aad inuu isweydiiyo leeyahay soo ula qabsado garanaysa ama private student oo kusoo biiro iyo waxa weeyaan macaan shahaad iska bixiyo iyo kadib science waay oo iga helo garanaysa ardayda fahanteen taaliyan all right anyone asxaab badan way ku jirtaa groupka hadda waxa weeyaan material waxaan ku dhagaa asxaab badan way waxa weeyaan marna caawi horta waxa weeyaan lacag sameynay waxa weeyaan group ku jiraan so I give my interest also I give my interest sida my interest you know entry axsan tusaa kadib waxay raayeen shaqay hala shaqaysto levelka iyo entry waxay ninka lacag sameeyo waxa weeyaan shaqsman sabab koon taran مش معك تمام شخص ما حويان ورقة اسمها من كتر الترين لكن مرة صح أنت مرة كذا غلط شاطم حيته لا الآن ويا أخر مرة هذي حويان شخص ما حويان نقل إلى محمد بن بس هو دري صوت الجاب سري you guys not understand وين أصلا أي شيء أنا بحال معناه من شيء جدا سيسون لكن أنا فهمتها عن قطعة صمم مدة فهمت إلى بحي أنا قبل حويان عن أنو عن كفكري كرمان قفك أنو وحي فهمه أيام عن كار حقيقة فهم مدة فرقوا حكمة حويان امتحان قدرت إلى مريكا متى على يا إلى حرق فانسيو بحب أبعد شوية من غير الله أنت ما فهم مسلم أنت ما فهم مسلم لكن no problem it's a part of the الله بلان إلهي حويان المكيسة حويان أنا وحنا إلى هذا قفنا امتحان وحمسي كرنسا so يورو دولار معاه رادين السير رادين صارت معي تاي معك تسيتن سبلاي very simple معك تسيتن under resistance so what do you look for any breakout even it's gonna be button correction you know button correction and from there what you can expect 9 rules I got it beautiful move but in the correction beautiful movement to support yeah which support you will go this is with the support confidence level 9 rule هو عوضها كده عفيري يسوي قال شهر ماك استريد في الراكجي ساطر ما يغني باشو حويان صاحب بيها سلو موزان ما باشو اللي في العام مش غني رمي فيها اللي رمي فيها اللي يسرقوا يقول لك جبدوا فيها اللي يسرقوا يا لما كرنت يجونوا بس إن كمان ربوا هذا اللي يسرقوا هذا اللي يسرقوا is up to you أديك وأنفعيس أو أديك وأنفعي ويقرنس أنا جا يقول فديو شيل الماء قرنس all right so come back to daily perspective daily level so أنت محنا غنى سامرك previous daily high and previous daily low right draw with trend lines again draw with trend lines on the levels انت عم تصور trend line on the level you turn left on trend line الله trend line كان ممكن تقرن كتار you turn level trend line فوق بتاع area of confluence trend line this area should be resistant that area is broken so this resistance is broken break out pull back then you can expect a new continuation to where last week market break the top the swing high and we can expect here to this new high then sheeko mana qasho markay batankii buuxsay bam 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 kadib soo bilaabo markaas sheekay علماء علماء لا سيدنا كيجي أنا فهم لا
daily hala yimaado kadibna waxa weeyaan daily left hala yimaado kadibna waxa weeyaan correction yidhiisa kadibna waxa weeyaan next impulsive move to the downside two weekly support weekly trend line weekly key confluence this weekly key confluence so $0 I do expect that area inshallah. All right, last week was a very consolidation week. This week you expect reversal inshallah. So also TVC soo noqdo. Taasna maxaan ku heli waaya thrown up monthly, yearly, daily level. Marka levelska aad barato everything waxay ku noqonayaan cambuud carabta. Laakiin levelska ma inta inkirayso my friend waxaad ku jirtaa marka lagu maadaysto forex market. I'm telling you. So waxa weeyaan waxaad ku quseeya soo qaadanaysa dadna qaadanaya. All right. That's a yearly level is okay. Come back to monthly level is draw a monthly confluence level because market love the confluence level. I'm in love with the confluence level, guys. I'm in love. I'm in love with the gogo. I'm in love with the gogo. Gogo, you know gogo? All right. Draw up my level is, trend line level because I know the key confluence level. I love you, key confluence. I love you, key confluence level is. Then waxay tahay I'm drawn up now, key confluence level is. Also, this week alone, summer. Now I'm drawing again my trend lines. Just to know the key confluence level. I'm going to go now daily perspective, right? So market is sitting above the key confluence levels and prices open above. Then waxay tahay waxa weeyaan is my support, right? Support of the week gonna be around here. Short time support gonna be let me go to a daily and short term support around here. It's gonna be support. Yeah. All right. Go to a daily marka. Daily marka aadam waxa weey xasuurinaysa marka. Price draw up previous daily high. Daily. So already seen supply. The GBUC is set. Can you see? Market sell. All right, GBUC is sell, right? Market GBUC is sell. All right. Automatically, market you can sell. Maybe open above and trade higher. I don't think it's gonna happen, guys. From negative swing to swing high. All right. Then right we can go to this area, Fibonacci complex, Fibonacci target. These institutions they take from Fibonacci levels. They take it from here. So game marka key out psychological levels out. Yay! Market sitting above psychological level, guys. Market sitting above the psychological level. Then we can expect for the push up, But here, need to cut back, man. Now currently market sitting resistance. So we can expect market to push down, come back to support. Then we can expect to see that very simple. Market sitting the resistance now, right? Come back to what? Come back to supply. Opening box sell kare karta. And right there you can expect rejection of the bridge imbalance. Then we can expect a new high. Then from there, it's gonna be button fully. It is my button like a surgeon. Bakata! Markisa. Nandro! Support yan lang. Mana ya kadibna. Hawe yan. Hashtag chupi around here. Then with the
T flag, bearish flag, then we can expect the new support week. Going to be support week with the support. Key confirmance support. Not gonna laugh my level. Not gonna laugh my level. بس وحويان ويابين. There's no magic. You support on this level. There's no magic. هذول كوي support مش شقيان. إيه price action. Price action إيه. Price action. Price action معاه. meel kasta suuqa laga celshay meel kasta macnaha level maya levelku waa niman gooniya waa tol gooniya tolkan weeyaan yearly levels monthly levels maxaan ku ihahdaa weekly levels daily levels ICT levels oo monday waa inii sheegay ICT levels oo ASEAN ah waa inii sheegay habadani kama qarsan ICT levels oo yearly ah oo macnaha waxaan ku ihahdaa monthly oo pacific of the year waa inii sheegay yearly January waa inii sheegay ma dhamaan weli January weli diyaar maaha yearly ICT level diyaar maaha which means waxay tahay January markay dhamaato waxaa ku diyaara ICT level high ICT level low what are you going to do don't ask me I show you levels go back test sida loo isticmaala nacfigooda ha i weydiin waa kuu sheega baarbaaro مثلا aniga waxaan ku baartay inta xaa ka aaday inta xaa ka doontay saxa inta u aaday xaa ka doontay xaa markay saa yeeshay waa ku digriyay مثلا taa suuqa legal sinka waash inuu taro waash yaa ku diid adiga مثلا kama hoosi waa ku shay information waa ku siiyey ka bax dadka lagu maadeysto waxaan ku taralanka sawiro leefka ku soo taralanka maxaa ku sawira fiir maxaa ku sawira fiir مثلا ku sawir meeshaas see laga sameeyey saa la yeelay ma la ixtiraamay see u aaday soo kasii aaday soo yeelay isweydii مثلا ku digri wiigli ku sawiro okay wiigli ma leeyahay ha ku sawiro maxaa ka dhacay rajis ma ka dhacay kor ma laga aaday sil ma laga aaday ma la isbitiray see la yeelay then from there you become professional trader you become xogta bilas jabaacada yiraahdo 10% traders in the market because waxay tahay confused ma ka baxay waxaan aqaanaysaa qof aan confused ku jirin oo 90% xitaa confused ku jiro cilmadu kuma kalsoona laakiin 10% waxay tahay they know the level market will respect before هي مش حكوشة يستمر لكن هنا كوشة حكوا سيدا هنا ترى سو حكوا سمي حكوا سيارة ما تجني حكوا سي سو يالي عنجا سو آدي انتو آدي مدة قوة عليه حط قوة عليه حط أنا جا أنا فاهم حكوا قاتي 2 years سو اللي شيء وفوجة مثل ما كنت يدعو رسيت بقى فوجة لكن عور ما هنا مش مثلا waxaa marka lacagta la baxay arnin saan loo isticmaalaa saana yeeshaa saana yeele saan waa ku leeyahay ma tahay haddii kale maskaxda ka dhiidaya maskaxda ka dhiidasha maskaxda ka dhiidaya laba sano ayaan macnaha soo rafaadsanaaya ugu yaraan horta bil ku rafaad ilaa 3 bil rafaad adiga mana saa ugu rafaad ugu gashan maya tan hooyo inta meeg mat ha tan soo soco marka waxaa timaadaa اسبوع دائما هو يعني فريليس هنقول مركا go what going to happen go I love you go my love I love this one my friend go come on going to happen I don't know لكن waxaan ogahay in levelskayga la ixtiraami doono my friend haddii aan ka arko rejection iyo ixtiraamna aan anigana ku guul doono oon ka hari doono waxaan ogahay inta xitaa inay tahay previous yearly high and low taan waa sawiranayaa the key confidence levels I'm expecting reaction why sababta was strong resistance level very simple sababta maxay tahay is very strong resistance level ragga kuwii marka sababta ma shaqeeyaan hadda waa kaasaa adigu meel geeya ma beenayaalay ahaayeen ma cilmigeena aqoonin maxaa ka qaldanaay wuxuu isweydiiyey mafareen qofka marka hadda markaad haylowda xogaa tijaabiso xogaa ku wareeri doontaa bil istacud baa ku wareeri markaa adeeg daba gasho laakiin sababta maxay tahay oo aniga ku baray fahmaysa sababta maxay tahay marka hadii tahay waxaa ma shaqeeya macdaa fashilmay mase haylowa fashil maa fashil mafareen adigaa fashil adiga waa adaa fashil sax ee hayloma fashil
هاي لو ليفلز كان ما فشل هي فشل هذا فشل ساعتها maxay tahay you don't want to follow the process you don't want to have a mentorship damage that is really awesome you don't want to also process ka xanuun iyo wuxuu leeyahay faa'iido leeyahay patient قاعد بيقول هذا فشل مش هذا فشل ما process ka xanuunkiisa u dul qaato maado aad macallin yahay maado macallinkeed macallin hay berigo fashil maxay tasabto u dhicida ateliyo ishtada waxa loogu fashil sida kad gashay horankaaga sheegaya waxa ku fashil kan waxay tahay I've been asking 2 years intuu aadi maxaa ka doonta maxaad ka aadi saa aadi isu ma ka dhacay si mala ixtiraam see aadi ya ama saas yeelay maya you don't get what I'm saying ma isfahmaysa waxaan ku sheegay yeah you don't get what I'm telling you all right from my level is come back to a daily time frame when I come back to a daily time frame I'm going to daily time frame then waxay tahay I'm going to find my supply and demand levels support and risk level واحد علم ما يرى علم ما أنا سوق حوالي كل دقيقة ما في عندي هاي تاي I'm drawing up my trend line I'm also drawing my trend line أنا أوريكم هاي أنا هاي تاي I'm shooting back أتاعنا هاي أيوة هذا support and resistance now فما كان system the resistance current السوق محتوى resistance zone okay على سريع سير all right على سريع سير فهمت breaking above this area the response around this area لكن حتى the trend is bullish higher highs higher lows higher highs higher lows higher highs should I still sell up trend now I'm expecting for the push up now so I don't sell an uptrend just wait to market in new direction see uptrend I tell you my friend come around here let me buy you or go there let me sell you very simple straightforward from major swing low to swing high Fibonacci conferences golden ratio where's the golden ratio around here 1917 the golden ratio we can expect rejection to where to previous yearly high and from there هنشأنها full barren full bearish barren guys full bearish barren and from there we can expect a strong sellers bam hal mar oo soo dhacaan ku dhacay because it's yearly level market will respect damage doesn't look see you weekly high then you can sell the resistance this is a resistance zone this is a resistance zone this support zone this support zone this support zone then suuqii kadib soo imaanaya marka there's no support the support is here tan waxaan soo talagelay karnaa ilaa weekly supportiga can be weekly support can be weekly support then maybe you can take a swing trading opportunity I got that swing trading opportunity taasoo ay tahay 1,000 pip increment before to 64 1,000 pip increment yeah 1,000 pip 1,000 pip I don't trust how do you go that's my technical right my technical level is one aqoonsada laakiin gold lesma aaminshin you go where sentimental analysis me I'm not trader or technical trader I trade everything I use everything sentimental analysis COT report also commodity exchange and I will be find out if the institutions look to sell the market to gold beautiful this week I'm seeing so far they added some shorts 600 shorts
and they added 300 short buys long. Overall, last week, also, I don't have the transparent ethics website. Like in last week also, it was not adding so much money buys. Money buys kudirayn, shots can have been kudirayn. So still we don't see strong shots. I treat on other pullback. So very strong move, inshallah. According to the ICT leverage, I'm not sure ICT level public guys. I know survey every baro. إذا عروسه إن شاء الله تعالى أرجع فانتين. خامسا أرجع فانتين في صوص أمريكا. حتى اللي يرادوا سيلفر ودايركشن جي بي جي بي واي. Will GBP be foul or I don't know. لكن مرة levels كأسوأ شو and everything should be simple. Let's find out key support and resistance level. If we find support and its levels, then everything will be simple, guys. If you don't trust support and resistance, then you are far from being profitable trader. You are far from becoming profitable trader. I'm telling you, the key confluence levels, the key confluence levels for yearly, so monthly math, what you're going to find out key confluence level. You're going to find out key confluence levels. When you got key confluence levels, when we trade from those levels. All right. Support. Monthly key confluence levels. Monthly key confluence levels. All right. Draw up your level. Draw up your trend line also in the level, right? From there, come to weekly time frame. Also try to find out key support and resistance levels, because the market goes sell from resistance and go buy from support. And support as yihiin qaarna waa barbaratoy qaarna waa professional. Halka bartay yihiin dadka yiraahdo suuqa marka saliic waa support dadka waxay ku kala jiraan barbaratoy levels ka yihiin oo support and yihiin levels ka high low. Waa magic support and levels. You don't trust me, just test it. Yeah. Qayb badan waxa weeyaan. Yeah. Waxaa ugu qasbay kamid tahay inaan macnaha waxay aan soo soo dhigo. Fikir soo dhigo. Dadkii waa walaayeen Soomaali. Dadkii waxay tahay max support real. Price action shakala soo baxay ka xalligashan. Inta waa level, some way, support. Dadku waxa weeyaan lagu wada yaacay hadana waxay systemkii boqol ma fahmin. Tafiis waxay sameeyeen ummadda taweyle waxa weeyaan madaxweyne ummadda ka duceeyay. علم وكسي يا غير لغو امتحان مدة كده وشمس مكرم شيخ أنا كسوب بندقي أنا تاجنا كي كونفورمانس المعلمين تعطيهم تاجنا معلمين وبرت علم الواقع علم ربط واقع برت تاجنا تبي أنا الصومال ترى علم تقال علم البرو وقويا تبي no one knows إن أنا يدين قادم ويا أنت كره هاي لو ميغاني وبنا قلنا برفتها معنا بين بس وش بين عكسو بعد أبان لا قام شيء بين السوق عكسو بعد هذا بدو عمش بين السوق ده support this area of key level this area of key level right فهي قانو أنا كور مشي ده أنا كوش شيء أنا يقبرن أو أنا يقبرن فريت أنا يقبرتي أنا يمغش هذا بقى لا إيه هذا بيربطه عمود هذا بقى الله بس كي أنا دي جرم غير لا كوشي إلى قلبي يجي قلبي لا بلا قلبي يجي أنت أنا أرضي إنك قوايا واحد أنا أرضي إنك قنوع ويان أنا واحد بناتك أنا لا فرس أنا شغال ده بقى لو أنا لبعتهم الجرع وبرجع يجي يعني وحتى اسمها من برتماكسي برتين هي غلط حتى حتى هاي اللي فرس كي برتين اسمها من كل برتماكسي كل برتين تدي حتى هاي تعال تدوم بسميوها تمام don't worry guys امتحان حويان مين هو امتحان الدين علم يكون حويان بعد على صور المرأة إن شاء الله تعالى بتوجدنا وعلى مساكين تعالوا نحرس دبن الله
cilmiga ku dhiban hala baro aniga waxa weeyaan wax walba aaqiinay inta soo dhigay bas waxaan taaganahay kaliya waxaa lacag ka qaadanaya qofka maxaan ku ihahdaa laysiga because I don't have time guys aniga time qofka laysiga hadda mid yar oo group head process aa jiray bus lagu tagay waa rafaadsanaa urani laakiin marka hadda waxaa lagu fahmay process kan gudda soo dhasaa shukran iyo macduur hadda wuxuu taagan yahay maanta kun inaa sameeya arajito إذا التواصل أول هالشامات أنت أسمعين غير كونفلونس لا ترى لانك سورنا إذا سورنا لا بس من السوق تمام marka waxay tahay cilmigii dadka ehelku qofka marka cilmi ka maqan yahay waa dabagala moogtay waxay tahay qofka cilmi ka maqan yahay leefis dabagalo ha isbaro haddii uu kusoo wareero yarka waxay tahay muddo daba joogo waa kusoo wareeri ma faran kana wuxuu yiri saaxiib wuxuu cilmi waa shaqeynaa suuq waa caada inta waa caada wuxuu saaxiib macaan waxa weeyaan baashan iga dabagay suuq waa qalmada or la soo urida wala soo urida tamam waxay tahay baraasixna ku tira giraaga u yaqaan cilmi Soomaa laakiin waxa ka maqan wax yar oo macnaha cusub baa ka maqan anina hadda inta ku sheegay dad gasho you going to see magic laakiin waxay tahay saasku meeshan kaliya waxay tahay xagga la aad xalaga doon inta la xalaga doon salayir inta la aad ya hada inta waa hada dad gasho then you go to see what I'm telling you taas sameeyna waxa ku qasban tahay ma xogaa struggle ku jirto مرة العكس ميسا مرة خسارة مرة العكس ميسا خسارة غمر all right that's support and fit that's bank to support this it's called Newton level strong line yeah استمع all the secretaries يا كميدة نقول Newton level strong Newton level على تربس ايجنتس everything I say guys there's Egypt that's weird guys weird all of you knows إن ترى لما تدرس إنه مصدر وتقول إنه حوالي ودي حوالي خلاص ما تعمل في كده you can have trend lines ما بس marka حوالي waxaa bara waxaa weeyaan ragga guuleystay ku tira jireen ragga guuleystay weeyaan ma garanaysa so in that case waxay tahay the market now is resistance right Roma then it's going to be negative resistance around this right so what we can expect the market break the resistance hit new high and go back we're going to rally to another area to buy when we say market go up and trade about resistance we look to sell rally right very simple very easy guys I wish you guys understand for now the market is hitting the resistance this is a break higher high come back to the support can we buy to we rally to the trend حدود دي متى my friend my friend give us new higher high and give us a racing channel at the sales zone then we can sell you to the support the weekly support around weekly previous weekly support and back around here flag button and we sell to the rallies again very simple very easy all right let's inform you guys inaad waxaan rajeynaya inaad fahanteen cilmi badan oo weliga maqlan rajeynaya fahanteen cilmi badan oo weliga maqlana waxaan rajeynaya insha allah isku qurux badan dhamaan ka daaladino ilaahay wax qaar naga siiyo insha allah tacaala waxaan kaa codsanayaa kaliya waxaan kuu sheegay waxbay kuusoo kordhinayaa inay salaad shukriga insha allah ilaahay nuu mahad celi salaad shukri dukaa daaladno salaad shukri waa meesha laisku dhaafay garanaysa marka cilmiga fiirsato wax badan ku soo kordhi doona ilaahay u duko salaad shukr sababtay taa ma garanaysa dadku u dhimata ilaahay kan iga keen soo ma aniga babi aan soo dhig dad ma celis goor soo baraka soo cilmiga baraka ku sharfa marka at least ilaahay ma hadin ana xabad ay ma hadin tamam ilaahay ma hadin insha Allah baraka ku gudir doona waxaan ka bixi doontaa illusion terrorist waxaan ku biri doontaa qorfada terrorist insha Allah taala arjana fahanteen assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh